السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka isoo weydiinaya sweetcoin sidee lacagta loogala baxaa ayaa rabaa inaan u jawaabo. Horta inaad lacag la baxdaan waxaa ka horeysa in aad shaqaysataan. Okay, sidee loo shaqaysanaa marka? Sweetcoin shuruudiisa ugu muhiimsan waxaa waaye in aad barnaamijkan maxaa lahay saaxiibo aad ku casuntid ama saaxiibada aad u sheer garaysay in ay isticmaalaan isoo degsadaan. So marka muhiimadda dhan waa taas. Shuruudda ugu horeysa oo lacagta lagugu bilaabayo waa 20 qof. Laakiin 20 qof wax macno ah ma sameynayso oo lacag badan ma sameynayso. Marka waxaa u baahan tahay in aad heshid saaxiibo badan si aad ugu heshid lacag badan. Yacni haddii aad heshid 50 qof oo kaleeto ugu yaraan ama 50 ama 100 ama 150 ama 200 dadaa 400 500 oo saaxiibo ah ku casuumeen oo intiiba isticmaala. يعني intaas marka barnaamijku asaga kuusoo saaraya. Barnaamijkan uma baahnid inuu qofku ugu wacyigeliyo. Asaga haddii aad geshid wax kasta cadeymaha gudaha ayaa ka helaysaa dadka isticmaala oo before marka soo degsatid oo maxaa lahaay adiga emailkaada gashatid wuxuu kuusoo qabanaa dhowr qof oo adiga maxaa lahaay laga yaabo inaad taqaanid ama inaa aqooninba uu kuusoo qabanaa oo isticmaasho oo meesha power ku leh. dadkaasaa gudaha u galaysaa. marka waxaa ogaanaysaa saaxiibadooda iyo inta maxaa lahaay dhaqdhaqaaq ay maalintii ay sameeyaan. dhaqdhaqaaq markii lagu leeyahay ma ahan inaad socotid oo socod badan maanta dhan aad rafaad isgelisid ama inaad orodid ma ahan. dhaqdhaqaaq waxaa waaye taleefankaada applicationka maxaa lahaay meel wuxuu leeyahay daqiiqadaha ku xisaabaya. daqiiqadahaas intaa geysatid taleefankaada saas u dhaqaajinaysaa. xitaa maxaa lahaay taleefankaada saas u dhaqaajinaysaa ilaa 1 daqiiqo 2 daqiiqo 5 daqiiqo inta aad adiga awoodid maalintii. inta aad jaanisid kolba taleefan waad isticmaashay waxaa laga yaabaa maanta dhan in aad maalayacni dhex socotid aad saan u wadid video islaameed kan fiiri kan fiiri. marka fursadan ka faa'iideyso. muhiim ma ahan in aad ku mashquushid qof wax uu waqti soo geliyay waqti naftaada waqti geli. barnaamijkan haddii aad ku dadaashid waa YouTube camal. YouTube barnaamij oo been maanta laga sameynayo ma ahan. inuu lacag leeyahay marqaatiya laga yahay dad badan lacag ka qaataan laakiin wuxuu u baahan yahay in aad ku dadaasho dadaal u baahan yahay. marka barnaamijkan Sweetcoin asagana wuxuu u baahan yahay dadaalka ugu muhiimsanna waxaa waaye in ay saaxiibo ay kugu maxaa lahaay soo xirmaan. sida adigoo follow badan haysatid saas camal leh waa saaxiibo in maxaa lahaay linkigaada ay maxaa lahaay isticmaalaan. ay waxaan ku dhahay maxaa lahaay hadday rabaan isticmaalaan ma isticmaalin. laakiin muhiimadda waxaa waaye before inaad qof aad u sheer garaysid saaxiibada ay soo degsadaan. marka ay soo degsadaan taas waxaa lagu xisaabanayaa dadkaas inay yihiin dad adiga dhankaada ka socdaan. maxaa jirta maxaa lahaay maamo isticmaasha farxiye maxamed ugu qoran. aniga aqoon uma lihi laakiin maalinta applicationkan aniga aa soo dhigayay inay iga horreysay in kale ma ogi laakiin ayada hadda maasha Allah dad badan ku xiran. hadda farxiye aniga saaxiibadeeda inta ku xiran maxaa lahaay applicationka dhexdiisa ka dhex arki karaa inta maxaa lahaay ay sameyso in ay farxiye lacag ka qaadatay. so maxaa lahaay meeshay ku qoran tahay. marka waxaan wax been ma ahan. ayada maasha Allah tabarakallah dadka markasta way ku dhiirigelisaa laakiin waxa ay ku dhiirigelinayso waa wax xaqiiqo ah oo dhab ah. wax ay maxaa lahaay in ay dadku soo jiidasan ma ahan. waa wax reality ah. aniga markaa gudaha u gala hadda sawira meeshaan soo saaraya dadka oo aniga uu iisoo qabtay barnaamijka oo isticmaala oo powerku ku leh. soo maxaa lahaay farxiye xitaa way ku jirtaa sawirka intaa soo saaraya si ay idinkugu noqoto adinkana dhiirigelin. barnaamijkan waa xaqiiqo lacag waa laga sameeyaa. fursadan ayay ku dhaafin ka faa'iideyso. maalin kasta TikTok intaa dhex taagnaan lahayd maalayacni oo fiidiyoyaal islaameed ama waxaan ku dhahay aad waqtigaada aad ku dhumin laheedeen. soo marka fursadan ka faa'iideysta. waxaa dhigi kartaa haddii YouTube aad leedahay linkiga YouTube ka dhigaysaa. linkiga waxaa dhigaysaa TikTok. linkigaada waxaa dhigaysaa Facebook, Instagram, Snapchat. bal fiiri intaasoo application ah haddii aad ku leedahay saaxiib oo linkigaada intaasoo meel aad dhigtay dadka kaasoo raaci kara oo kugu soo xirnaan kara oo barnaamijka maxaa lahaay
isticmaalaya yani inay qaarkoodna isticmaalaana laga yaabaa yani wax lasoo koobi kara ma ahan markaas lacag fiican ayaa ka samaynaysaa wiil carab ah ayaa hadda sidaas yani idin sheegaya sameeyey waxaa igu soo xirantuu dhah 500 oo qof yani 500 hadda wax weyn ma ahan sida barnaamijyada kale markii loo fiiriyo laakiin asaga sweet coin haddii ay 500 kugu soo xiranto waxaa laga yaabaa isbuuci inaad ka samayso lacag 300 400 500 dollar ah marka wax sahlan ma ahan ha laga faa'iideysto sweet coin insha Allah linkigiisa wuxuu saaran yahay TikTok-gayga korkiisa soo degsada isticmaala share gareeya adinka kiina sii share gareeya aan wada faa'iidno walaalayaal